qaybtii hore waxay ku dhamaatay iyadoo Cusmaan Bey uu dareemayay in shirqoolo waaweyn ay ku hareeraysan yihiin. cadowgiisu ma doonayaan inay si toos ah ula dagaalamaan, balse waxay doorteen waddo kale oo ah khiyaano iyo dhagar. markii uu Cusmaan ku soo noqday xerada qabiilka, wuxuu arkay in xaaladdu isbedeshay. dadka qaar ayaa bilaabay inay isweydiiyaan sababta dhibaatooyinku markasta ugu soo noqnoqdaan qabiilka. arrintaasina waa waxa ay cadowga doonayeen in ay abuuraan shaki iyo kala fogaansho. dhanka kale, Sofia waxay sii wadaa qorshaheeda qarsoon. waxay og tahay in haddii Cusmaan si toos ah loola dagaalamo uu guuleysan karo. sidaas darteed waxay dooratay inay dadka isaga ka soo horjeeda isticmaasho. waxay adeegsanaysaa basaasiin iyo dad qarsoodi ah si ay warar been abuur ah ugu dhex faafiyaan deegaanka. Cusmaan Bey marka uu ogaaday in waxyaabo qarsoon ay socdaan, wuxuu amray saaxiibadiisa ugu dhow inay si qarsoodi ah u soo baadhaan cidda ka dambaysa dhacdooyinkan. Bamsi iyo rag ka mid ah waxay bilaabeen in ay si qoto dheer u baadhaan arrimahan ka dhex socda qabiilka, isku dirka cidda ka dambaysa iyo cidda cadowga ah ee kusoo dhex gashay. muddo yar kadib waxay heleen xog muujinaysa in ganacsato iyo rag kale oo qabiilka dibaddiisa ka yimid ay xiriir la leeyihiin cadowga. dadkaas ayaa isku dayayay in ay qalalaaso abuuraan si Cusmaan loogu eedeeyo fashil kasta oo ka dhaca meeshaas. intii uu baaritaanku socday, Cusmaan wuxuu helay digniin cusub. waxaa loo sheegay in weerar lagu soo qaadi doono meel muhiim u ah qabiilka. haddii weerarkaas lagu guuleysto, kalsoonida dadka ee Cusmaan si weyn ayay u dhaawacmi lahayd. Cusmaan ma sugin, wuxuu si degdeg ah u diyaariyay qorshe difaac. habeenkii markii cadowgu u maleeyay in qorshahoodii uu guuleysan doono, waxay la kulmeen waxaysan filayn. Cusmaan iyo raggiisii ayaa hore u sii ogaaday jidkii ay mari lahaayeen. dagaal kooban kadib, qaar ka mid ah raggii weerarka waday waa la qabtay, laakiin ka hor intii aan la su'aalin, mid ka mid ah raggaas ayaa ka baxsaday gacanta Cusmaan. taasi waxay muujisay in qof awood leh uu ka dambeeyo oo aanay dadkan ahayn. arrintani waxay sii kordhisay shakiga Cusmaan. wuxuu garwaaqsaday in cadowga uu la dagaalamayo aanu ahayn koox yar, balse uu yahay shabakad ballaadhan oo doonaysa inay burburiso himiladiisa iyo hankiisa. dhanka kale, Sofia markii ay maqashay in weerarkii fashilmay, aad ayay uga xanaaqday. waxay ogaatay in Cusmaan uu ka caqli badan yahay sidii ay u maleynaysay. sidaas darteed waxay bilowday qorshe kale oo ka khatar badan kii hore. markii ay maalmo yar dhaafeen, war cusub ayaa soo gaadhay Cusmaan. waxaa loo sheegay in nin qarsoodi ah inuu isku dayayo inuu soo dhex galo dadka qabiilka si uu xog uga aruuriyo gudaha. Cusmaan wuxuu amray in si taxadir loo ilaaliyo qof kasta oo cusub oo soo gala deegaanka. baaritaankii ugu dambeeyay ayaa horseeday xog aad muhiim u ah. Cusmaan wuxuu ogaaday in shirqoolada oo dhan ay isku meel ku kulmaan. qofka ka dambeeya dhacdooyinkaasi wuxuu doonayaa in marka hore la kala qaybiyo dadka, kadibna la burburiyo awoodda qabiilka. Cusmaan Bey wuxuu istaagay isagoo eegaya xerada qabiilka. wuxuu fahmay in dagaalka dhabta ah ee hadda bilaabanayo. cadowgu weli wuu qarsoon yahay, shirqoolkiisuna weli ma dhammaan. laakiin Cusmaan wuxuu ku dhaartay inuusan ka laaban jidkiisa ilaa uu ogaado cidda dhabta ah ee ka dambaysa dhammaan khiyaanooyinkan. la soco Kurlus Cusmaan Part 1. yaa dhab ahaan hagaya shirqoolada? Cusmaan ma heli doonaa cadowga qarsoon, mise dabin cusub ayaa loo sii diyaarinayaa? Cusmaan iyo raggiisii waxay sii wadeen raadinta cidda ka dambaysa shirqoolada. markii ay daba socdeen xog cusub, waxay gaadheen meel kayn ah oo ay ku dhuumaalaysanayeen rag laga shakisan yahay. Cusmaan wuxuu amray inaan si degdeg loo weerarin. wuxuu doonayay inuu ogaado cidda ay u shaqaynayaan. muddo yar kadib, nin wejigiisa qariyay ayaa goobta yimid. raggii oo dhan waxay muujiyeen ixtiraam weyn,
taasoo muujinaysay inuu yahay qof muhiim ah. Cusmaan iyo saaxiibadiis waxay isku dayeen inay si dhow u arkaan ninkaas, laakiin ka hor inta aysan u dhowaan, mid ka mid ah raggii cadowga ayaa arkay raadkooda. isla markiiba qaylo ayaa la bixiyay, waxaa jira dad daba socda. dagaalyahanadii cadowga ayaa seefahooda la baxay, halka Cusmaan iyo raggiisiina isu diyaariyeen dagaal. dagaal culus ayaa halkaa ka qarxay, seefuhu way ishaleeleen, qayladuna cirka ayay isku shareertay. laakiin intii dagaalku socday, ninkii wejiga qarsanaa wuxuu helay fursad uu kaga baxsado goobta. Cusmaan markii uu ka adkaaday raggii kale, wuxuu eegay jidkii uu ninkaasi ku baxsaday. wuxuu dareemay in qofka baxsaday uu hayo sirta dhammaan shirqoolada. laakiin qofkaasi waa kuma? maxaase ka dhaxeeya isaga iyo cadowga Cusmaan? su'aalahaas jawaabahooda waxaan ku ogaan doonaa qaybta 3. fadlan channelka subscribe, saar, like na saar, siina share gare. mahadsanid.